oo madaxweynihii waddankan haystay uu isaguna albaabada furay waxa ayaan daraa shacabka reer Soomaaliland maamulkii haystay inuu albaabada isagu maanta u furay isagoon u haynin maare haddii dhibtaasi maanta ilaahay kuma keenay shacabka ku dhacdo waxa u diyaariyay aanay jirin waxa maanta ogtiin eeriboodadii Soomaaliland gabi ahaan bay furan yihiin in diyaaraduhu galaabaxayaan bad ogtiin in dadiyowgii adduunka oo dhan meelay ka degaan markii hore geeska Afrika ay maanta ka soo degayaan Soomaaliland bad ogtiin qofka maanta xanuunkaasi asiibo qadarta ilaahay ka sokow ee reer Soomaaliland waxa mas'uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaad moodaysaa xukuumaddu inay aad ugu faanfaanayso dhibaatada adduunyada ka dhacday inay shacabkeega ku dhacdo inay si hor socotaad moodaa taana waxa marxaati ka in wasiirooyina oo isaguna xalay lahaa Soomaaliland xanuunku ku jira wali ma aanan arag madax bulshadeeda ugu yeedha xanuun oo ku faraxsan oo iyagu qayladaan xanuunkii u diraya waayaan darrada maanta maamulka Soomaaliland ay jiray maanta shacabkiisa ku hayo qofka maanta xanuunkaasi ku dhaco ilaahay qadarkiisa ka sokow ee reer Boorama ama reer Hargeysa ama reer Burca ama reer Ceerigaaba ama reer Laascaanoodii mas'uuliyaddeeda waxa iska leh madaxweynaha maanta talada haya iyo xukuumaddiisa iska leh madaxweynaha waxa kale uu sheegayaa madaxweynaadu haddaad beertaadii xanuunka ka gabanayso shacabka reer Soomaaliland masaakiintii nin waliba baadiye beer kama samaysan dhaqaalihiisuna uma tahli kari waay adigu haddaad haysato meel aad kaga gabato walow madaxweynaha laftiisu yahay daadii u nugleed xanuunka u yahay haddii aad laakiinse beertaada kaga dhuumanayso dadka shacabka reer Soomaaliland ma haystaan meel ay kaga gabadaan adiguna waa adiga u fasaxay ma arkayo natiijo dawladnimo oo aqoonsi keenaysa oo xanuunkaasi soo wado ganacsatada iyo dadka wax haysta khaasatan kuwa maciishada gacanta ku haya iyagana waxa leenahay war ummadda u naxariista oo waxa aad haysaan ha qaaliyeynina awalba dadku waxa ku jireen markii hore oo maal beek bay ku jireen shacabka reer Soomaaliland maciishaduna aad iyo aad bay qaali ugu ahayd oo waxaad moodaa maanta ganacsatada qaar inay si gaar ah uga faa'iideysanayaan masiibada dhacday iyo badxiranka dhacay inay si gaar ah uga faa'iideysanayaan oo shayga maanta kor loo qaadanaanay dadkii danyartii goynayn waa nasiib darro qofkii ganacsadaha ahaa isaga laftiisu hadduu ka macaashi siraa dhibtii dadkiisa uu ka macaasho